gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishaay geedka habo u gabraaratada gumaysigu ku dhuunta dalabsada xumaanta geedkooda booq. waxaa jirtay in horaantii sanadan 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay dagaal ka dhan ah kooxaha khawaarijta ee naflacaariga ee Al-Shabaab kuwa oo muddo ka badan 15 sano naf iyo nololba u diiday dadka Soomaaliyeed. dagaalku waxa uu ku bilowday jawi guula ah. guulaha dowladda Soomaaliyeed ee hantisayna waxaa marqaati noogu filan qabashada degmooyinka Aadan Yabaal, Moqokori, Maxaas iyo degmooyin kale oo ay ka mid yihiin Xaradheere, Ceeldheer, Wabxo iyo degmada Galcad ee qadiimiga ah. ciidanka dowladda Soomaaliya guulahaas kadib waxa ay sidoo kale galeen dagaalo culculus kuwa oo shabaabka iyo ayagu ay dhiig iska waraabiyeen. hase yeeshee yeelkadeeda intay ciidamadu dagaalka ku jiraan waxa ay soo hooynayaan guulo, marna way guul dareysanayaan, marna ayagii cadowgu meydka ay kala jiidanayaan oo xaalad dagaal. baryahan dambe waxaa soo kordhay in ciidamada Soomaaliya iyo dowladda oo dagaal ku jira ayaa sidoo kale waxaa soo muuqanaya oo aan indhaha laga qarsan karin waxyaabo u eg in aad moodo in social media uu ka socdo kacdoon niyad jabin ah kaas oo lagu qalqal gelinayo dagaalka halganka hayaamay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku joogo caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waa ubuucda ama udub dhaxaadka laga hogaaminayo dagaalka. madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ay dadka Soomaaliyeed ee siyaasadda daraaseeya ku qiimeyn jireen ama ay ugu abtirin jireen abuurkii ay soo beerteen dowladdan ka horeysay iyo kooxdii talada dalka laga faramaroojiyay ee nabariyeen ayaa waxa uu haatan yahay tiir weyn oo kamid ah tiirarka uu ku taagan yahay dagaalka la dagaalanka fikirka xajirka iyo argagixisnimada. waxa uuna madaxtooyadiisii, xarumihiisii iyo sidoo kale ciidankiisii iyo staafkiisii soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo wafdigiisa. madaxweynuhu waxa uu dagaalka haatan socda ee laga hogaaminayo Dhuusamareeb ka yahay qayb weyn. waxa uuna booqasho ku tagaa furimaha u dhaxeeya Dhuusamareeb iyo Ceelbuur. sidoo kale waxaan halkeeda ka marnayn in kooxdii talada dalka lagala wareegay ee nabadii nolol ay ku jiraan wado kasta oo ay ku carqaladeyn karaan dagaalka Soomaaliya. tusaale waxaa kugu filan Cali Yara Cali oo isqarin waayay kaas oo 24 saac soo boosti gareeya waxyaabo aan ognahay. nasiib darase Cali Yare walaalkiis ayaa ku dhintay qarxii ugu dambeeyay ee Muqdisho ka dhacay ee soo balab. ciidamada dowladda Soomaaliya waxay ayaguna si qaldan u isticmaalaan baraha bulshada sida TikTok oo kale halka ay ku soo gudbiyaan ayagoo oynaya iyo ayagoo ilmeynaya. taasina uma fiicna moralka ciidanka. sidoo kale askariga waxa marka uu tababarka ku jiro la baraa waxa la yiraahdo discipline iyo amar qaadasho. hadaba ka waran askari waxaad soo baratay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo shuruucda ciidanka, haddana sidoo kale waxaad diidaysaa taliye ku soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah taliyaha ciidanka qalabka sida. sidoo kalena waxaad doonaysaa taliye xilka laga qaaday inuu dib u soo laabto. bal ka waran askartii ayaa siyaasadda ku milantay. taayelkadeeda Al-Shabaab waxa ay ku jiraan xaalad go'doon ah, waxaana haatan isbuucan soo dhibay gudoomiyihii gobolka Mudug ninkii u qaabilsanaa Al-Shabaab ee dad badan agoonteeyay, dad badan qaxiyay, dad badan laayay. sidoo kale waxaad halka ka dareemi kartaa in Al-Shabaab kuwooda waaweyn uu culays saaran yahay, kuwa yaryarna ee kuwa waaweyn ku gambanayaan. fariinta ugu dambeysa ee aan jeclaan lahaa inaan muuqaalkan ku soo koobo waxay tahay waa mid aan u jeedinayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. habeeninina sababtii aad 2 sano ugu jirteen dagaalka ka soo bilowday masaajidka Cali Gaduud iyo Nuur Digle ka oo aad ku tagteen Ceeldheer ilaa iyo Xaradheere, Ceelbuurna ay xor idin tahay. waxaad tihiin kuwa bari darajada helaya, waxaad tihiin jiilkii dalka badbaadiyay, waxaad tihiin mujaahidiintii qaranka. ha iloobinina saaxiibkiinii dhintay, ha iloobinina xaasaskiina iyo caruurtiina iyo noloshiina iyo gurihiina raaxada lahaa waxaad uga soo tagteen. waxaa jirta in xaqiiqo ay tahay ciidanka intooda ugu badan ama dhalinyarada ugu badan ee lafdhabarka ah in ay yihiin reer Muqdisho ama ciyaal xamar. haddaba Muqdisho ma tahay meel Al-Shabaab ay u naxariisteen? maya, Muqdisho waa meesha ugu badan ay qaraxyo ka geystaan Al-Shabaab.
haddaba wiilka dhalinyarada ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan waxaan kuu sheegayaa in aad haysato fursadii aad ugu argudi lahayd walaalka, adeerka, abtiga, eedada iyo walaasha geeriyooday Soobawan iyo Kismaantaro. Ugu dambeyntii waxaan soo jeedinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada kuwa oo comment iyo like ku taageera wixii maanta faafiya, kuwa ay ku jirto masayr siyaasadeed oo ay ka xun yihiin in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Ilaahay uu u qadaray teeramkiisa ama waqtigiisa inuu al-shabaab la galo dagaal, haatan og inuu ka guuleysanayo inaadnan taageerin oo aadnan muuqaaladooda sheer gareyn si aad iyaga qaladkooda tustaan una sheegtaan in siyaasaddu hinaase aanay ahayn ee ay tahay inuu Ilaahay kuu qoro iyo inaad guuleysato. walaalkayga Yurub jooga ee xeyrta ka dhigay waxaa jira hooyo iyo walaalo Soomaaliyeed oo xaruur yaryar haysta, xaruurtaasina ay gaareen da'dii iskuulka iyo da'dii waxbarashada oo 20 sano ay ku dulfaytaamayaan al-Qaacida, al-Shabaab iyo ISIS. adiguna lacagta aad ka qaadato dowladahaas aad tuugsiga iyo baryaha iyo qaxa ugu tagtay ayaad ku samaysatay bara bulsho oo aad dadkaaga ku niyad jabiso. haddaba yaa tahay adigu, yaa tahay